ciidamada badda dalka Mexico ayaa la wareegaya maamulka garoonka caalamiga ah ee ugu weyn dalkaasi. Waa qayb ka mid ah hindisaha uu sameeyey madaxweyne Andres Manuel López Obrador si uu u xakameeyo shixnadaha droogada iyo socdaalka sharci darrada ah waxaana looga qabto maamul xumada. Wafdiga socda qaramada midoobay ayaa gaaray dalka Honduras si ay u eegaan siyaabaha lagu dhisayo howlgalka caalamiga ah ee ka hortagga musuqmaasuqa. madaxweynaha garabka bidix Xiomara Castro ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo musuqmaasuqa baasan iyo sinaan la'aanta ka jirta Honduras. haweeney ayaa ku dhimatay koonfurta galbeed ee dalka Japan, 3 qofna waa la la'yahay kadib markii uu dhacay dhulgo waxay ku tilmaameen mas'uuliyiintu roobkii ugu cuslaa ee abid ka da'a gobolka. webiyaasha marar dhowr magaalo ayaa qarar ka jabsaday. madaxweynaha Nigeria Bola Ahmed Tinubu ayaa loo doortay gudoomiyaha cusub ee urur goboleedka Afrika ee waqooyiga Afrika magaciisa loo soo gaabiyo ECOWAS. go'aankan ayaa lagaga dhawaaqay shirka ECOWAS ay ku yeesheen dalka Guinea-Bissau. ugu dambeyntiina ciidamada ilaalada xeebaha Philippines ayaa sheegay inay kordhin doonaan ilaalinta badda koonfurta Shiinaha iyagoo taageero ka helaya ciidamada badda dalkaasi. ku dhawaad 50 markab oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa dhowaan lagu arkay biyaha lagu muransan yahay. Shiinuhu wuxuu sheeganayaa madax bannaanida inta badan badda koonfurta Shiinaha. wararkii caalamka ee BBC-da waa naga intaasaan dib ku celiyo Kawsar Indho iyo qaybaha kale ee barnaamijka. Axmed Yuusuf Cabdiceed aad ayuu mahadsan yahay. markana dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijkana dunida aan iraahday idaacadeena subaxnimo. waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhageystayaal aan ku bilaabnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka degay Britain si uu qasriga Windsor kulan ugula yeesho ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak iyo boqor Charles. booqashadiisa UK kadibna ka qaybgalka shir madaxeedka NATO ee Lithuania ayaa loo arkaa mid muhiim ah kadib xiisada ka dhex aloosantay Washington iyo xulafadeeda NATO ee ku saabsan go'aanka ah in hub la gaarsiiyo Ukraine. faahfaahinta warkaas waxay noo haya Cabdiraxmaan Cali Dhimbil oo stuudiyaha isna haatan igula soo biray. Cabdiraxmaan bal noo waran. Kawsare goor dambe ahayd markii Mareykanku go'aansaday in Ukraine loo diro mid ka mid ah hubabka waxgumaada kuwooda ugu halista badan ee casrigan. qaar ka mid ah dalalka ay ku midaysan yihiin gaashaanbuurta NATO ee ay ka mid yihiin UK iyo Canada waxay sheegeen in hawshaasi aanay suuragal ahayn isla mar ahaantaana ay ka xun yihiin. labada nin ee kala hogaaminaya labada dal ee Mareykanka iyo UK waa Rishi Sunak iyo Biden ayaa la filayay inay hawsha ka wada hadlaan. UK waxay ku jirtaa wadamada ka soo horjeeda in hubkaas Ukraine loo diro waxaana ka mid ah wadamada sidoo kale New Zealand iyo Canada. marka hawshan ayaa la filayay inay noqon doonto mawduuca ugu weyn ee shirka Lithuania toddobaadka dambe ay NATO ku kulmi doonto laga hadlay. Cabdiraxmaan oo hubkan muxuu yahay marka oo aan ka naqaanaa? hubkan Kawsare waxaa loo yaqaan cluster baa loo yaqaan. waa mid ka mid ah hubabka waxgumaada kuwooda ugu daran. waa rasaas u samaysan sida bambooyinka oo kale oo diyaaradaha xamuulka ay qaadaan kuwaas oo dabcan mararka la soo rido si kala baahsan u dhaca oo meelo badan gaadha. hubkan markii ugu horeysay waxaa la isticmaalay dagaalkii labaad ee adduunka dalal kalena waxaa lagu tilmaamaa 15 dal laakiin wadamada NATO badankooda sida UK, France iyo Germany waxay saxiixeen heshiis la dhaho ka hortagga hubka clusterka kaas oo ah inaan hubka adduunka laga isticmaalin. US oo Mareykanku ka mid yahay iyo Ukraine ma ahayn dalalkii heshiiskaas saxiixay. sidaa darteed Mareykanku wuxuu ku doodayaa in hubkan ay sax tahay in Ukraine loo diro isla mar ahaantaana isku badbaadiso. wuxuuna sheegayaa in UK uu la gaadhay heshiiska ah in aanay hubkan u adeegsan meelaha dadku joogaan iyo Ruushka gudihiisaba ay u adeegsadaan kaliya inay isku difaacaan. mahadsanid Dhimbil. dhegeystayaal markana Allah u naxariistay xalay waxaa Djibouti ku geeriyooday abwaan aadan Faarax Samatar. doorkii uu ku lahaa fanka Djibouti ayaan goorsii horeysay weydiiyey Maxamuud Cismaan Bilxan. Kawsar waxaa dalka Djibouti xalay ku geeriyooday fiidkii hore oo da'diisu ay ahayd 80 jir waxaana geeridiisa BBC Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
waa tahay dhegeystayaal markana bal fanka doorkii uu ku lahaa Djibouti mar kale inala dhegeystaa abwaan faarax waa aadan faarax samatar kawsar waxaa dalka Djibouti xalay ku geeriyooday oo da'diisu ay ahayd 80 jir waxaana geeridiisa xaqiijiyay qoyskiisa waxaana ay sheegeen in fanaanku uu ahaa fanaan weyn oo xalay uu ku geeriyooday dalka Djibouti aadan faarax samatar allah u naxariistee bal waxaad nooga warantaa doorkii uu ku lahaa fanka Djibouti kawsar aadan faarax samatar waxa uu ka mid ahaa awaaninta ugu magaca weyn awaanintii dalka Djibouti hore u soo maray waxa uu sameeyay heeso badan sidoo kale waxa uu ka qayb qaatay halgankii xornimo-doonka dalka Djibouti oo dadka uu ku boobaaganeeyay heeso badan oo qayb ka ahaa xorriyadda sidoo kale xorriyadda kadib waxa uu sameeyay heeso badan oo lagu wanaajinayo isla markaana looga qayb qaadanayo nabadda iyo sidii isdhexgalka qowmiyadaha dalkan Djibouti ku nool ay u sii wada noolaan lahaayeen intaas kadib waxa uu sameeyay riwaayado badan oo dalka Djibouti aad looga xiiseeyo isla markaana dadku ay aad u jecel yihiin waxa uu sidoo kale ka qayb ahaa fanaaniinta oo uu sameeyay heeso badan isla markaana isaga mararka qaar ayaa tumi jiray heesaha qaar isagoo oo laxamka ku qaadi jiray dhinaca kale aadan faarax samatar waxa uu ahaa awaaninta dalka ay aad u jecel yihiin ugu dambeynna waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka fanaaniinta iyo awaanida Djibouti ay ku midaysan yihiin warka geeridiisa kadib markii qoyskiisa ay xaqiijiyeen waxa uu tacsiyeeyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo sheegay in awaan weyn uu ka baxay dalka Djibouti oo ka qayb qaatay xorriyadda iyo halgankii nabadoonka dalka BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay markana howlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland ayaa waxa ay al-shabaab kala wareegeen degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose sida ay idon sheegeen mas'uuliyiinta deegaankaas Xagar ayaa la sheegay in muddo 10 sano ah gacanta ugu jirtay kooxda al-shabaab ciidamadan ayaa sidoo kale howlgallo ka fuliyay deegaano kale oo hoostaga maamulka Jubbaland hadaba qaabka shabaab looga xoreeyay Xagar iyo xaaladda deegaankaas ayaan weydiinay gudoomiye ku-xigeenka Afmadow aadan maxamed cabdi saalimiin ayuuna u waramay walaal ma santahay muddo 12 sano kadib degmada Xagar waxay gacanta ku jirtaa maalinta shalay ahayd la wareegay ciidanka xooga Jubbaland qaybihiisa kala duwan ayadoo intii howlgalka uu socday la burburiyay xarumo ay ku lahaayeen oo tuulooyin hoostiga ay Xagar hadda si nabad leh ayaan kula wareegnay degmada ayaan ku suganahay wax dhiban ma jiro dadkii deganaa Xagar xageebay hadda ku sugan yihiin maadaama halkaas dagaal ay ka dhaceen dadkii degmada ku sugan yihiin wax dhiban ma qabaano waan u sheegnay inay bixin magaalada ka bixin si nabad ay u joogaan meeshaan kula hadalnay meel fagaaraha waan u sheegnay in gurigooda soo joogaan wax dhiban uusan jirin ay nabad ku joogaan dadkan hadda u imaadanay inay yihiin wiilashoodii oo xoogooda iyo maskaxdooda iyo u huray inay ka xoreeyaan qawaariijta aysan ahayn dad ku soo duulay inay dadkooda yihiin ay si nabadna ku joogaan meeshooda imise sano ayay gacantiina ay ka maqneed Xagar waay 12 sano hadda sida hadda xuwaad waa 12 sano marka bal dadka aan aqoonin Xagar waa deegaan noocee ah bal maaragtay haddii aad u sharaxdo Xagar waa degmo qadiimi ah waxay u jirtaa degmada Afmadow waxay u jirtaa 45 kilomitir bay u jirtaa marka waana dhinac soo xiro oo dhankaasayda bu'aale aan filaya inay u jirto iyadana masaafadan 70 ma filaya waa gartay maxaa deegaankaasi ama degmadaasi ay caan ku tahay oo bal markaad fiiriso ma degmo beeraleeyaha ma deegaan xoolo dhaqato aha waa deegaan noocee ah dadka walaal waa dad isku dhex jira dad waxay ahayd oo xoolo dhaqata iyo beeraley isku jiro in muddo ahna kii baarigaadinayay oo dadkii way iska soo carreen oo maadaama xoolahoodii haddii tahay beertii hadday fashaan qayb laga rabo sidoo kale haddii ay xoolihii sanadka markuu dhamaaday ay xabad canshuurayaan marka
dadkii badanaa way kasoo haajireen laakiin beesha dadka livelihoodkooda wuxuu ku dhisnaa wax soo saarkooda beeraley iyo xoololey. waxaad iga warantaa bal khasaaraha halkaasi ka dhacay maadaama dagaal halkaasi uu ka dhacay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca iyo guud ahaan dadka rayidka ah haddii ay dhibaata soo gaartay bal iyadana sawir guud iga sii. oo degmada xagar waxa oo khasaare oo hadda ka dhacay ma jiro si nabad ayaan ku galnay laakiin waxaan isku food saarnay oo sida welmaro khasaare xoog leh loogu geystay qawaariijta waxaa lagu dilay 37 waxaana laga qabtay gaari miina ah 28 miina ayana oo iyo gaari caasi ah oo raashinkii iyo wixii uu jiray baa halkaasi loo qabtay. marka bal hadda ugu dambeyntii waa maxay qorshihiina ku aadan degmadaasi xagar maadaama gacantiina ay dib u soo gashay? degmada xagar iyo soonahan dhammaanba miyiga Jubbaland dhammaan waxaan doonaynaa inaan ka xoreyno oo dadkaasi socodkooda iyo dhaqaaqooda dib ugu soo laabtan oo noloshooda asaasiga ay helaan waxbarashadoodii caafimaadkii dhammaan inay iyo hay'adihii gargaarkii dhammaan inay gaaraan barna insha Allah dawlad. gudoomiye ku-xigeenka degmada Afmadow ayuu kaasi ahaa oo aadan saalimiin uga waramayay xaaladda deegaankaasi kadib markii ay ka qabsadeen al-shabaab. waa hagaag markana muddooyinkii u dambeeyey dhulka Soomaalida meelo kala duwan waxaa laga maqlayay dab ka kacay xarumaha ganacsi kaas oo geystay khasaare baahsan sidaa oo ay tahayna badanaa lama xaqiijiyo waxa sababa dabkaas marar badan kacay. suuqa magaalada Jigjiga ayaana haatan u dambeeyey oo gubtay. haddaba si guud maxay tahay in la falo si looga hortago dabka khasaare intee la eg ayayse arrintan u geysan kartaa dhaqaalaha? arrimahaas ayaanu wax ka weydiinay Cabdirashiid Dahabshiil oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee xaaladahaasi saameeya kana qayb qaata gurmadkeeda waxaana uu u waramay Cabdiraxmaan Cali Dhimbil. wallahi khasaare badan baa soo gaadhay ganacsato badan ama ha noqoto magaaladan Jigjiga oo imika dab weyn iyo ganacsato badan ma ay ku khasaareen. tii kasii horeysay weeradeenu maqalay Waaheen bay ahayd, waxaa kasii horeysay Muqdisho, waxaa kasii horeysay Garowe. waxaana waa dabab soo noqonaya oo waliba waqtiyadan dabayluhu ay jiraan dadka dhibaato soo gaarsiinaya. muddooyinkan dambe khasaarahoodu aad buu u batay bal khasaaraha baahsan ee dabkaas sida fudud u kacaya uu keenayo bal maxaa keena baa is leedahay si guud? khasaarahaas runtii waa khasaare ganacsatada dabka ka gubatay ku dhacaya, macaamiishii lafteeda adeegsanaysay ku dhacaya, dhaqaalaha guud ee maxaa la yidhaahdaa gobolkan oo dhan ama gobolkan Soomaalidu ay degan tahay oo dhan ku dhacaya. waa mid maaragtay horumarkii iyo wixii oo dhan ka hortegaya, waana mid cid walba saameynaysa, shirkad weyn iyo shirkad yarba saameynaysa. dadkan imika khasaaruhu soo gaadhay ee dabab kala duwan soo gaadhay qaar badan shirkadaha Dahabshiil ay ka mid yihiin, macmiil ba u yihiin. markii dhibaatada noocaas soo gaadho oo qofkii wixii uu haystay oo dhan ay habeen kaliya gubato dee waa dareemi kartaa shaqaalihii ku noolaa, macmiishii adeegsanaysay, dhaqaalihii guud ee gobolkaas oo dhanba inay saameynayso. dabku waa cadow, waxa lagaga hortegi karaa waxa weeyaan day loo diyaar garoobo sidii looga hortegi lahaa. sidaad sheegtay dababkaas way soo noqnoqdeen dhulal Soomaaliyeed oo kala duwan bay marba meel ka kacayeen, si gaara suuqyada waaweyn oo kale. khasaarahaasunbaa marba dhacayay, dadkunbaa la caawinayay, xaalkuna waxaad mooddaa inuu halkii kasii soconayo. bal si guud doorkii baadhistu meesha ma ka maqan tahay ma la moodaa? xaqiiqdii horta mar walba baadhis waa loo baahan yahay, baadhis waa loo baahan yahay in cashar laga qaato, baadhis waa loo baahan yahay sidii looga hortegi lahaa, baadhis waa loo baahan yahay haddii dee dad maaragtay si khalada dabka uga fursad qaadanaya. laakiin xaqiiqdu waxa weeyaan markay dabeylahani jiraan, weliba dabeelahan maanta adduunka waxaa la odhan karaa waxa isbedelay hawadii adduunka isbedeshay. meelo dabeelu ku yaraayeen dabeelu sii xoogaysanayaan, meelo dabeelu ku yaraayeen baa maaragtay dabeelihii jiraan. marka horta waxyaalo badan oo isbedelay way jiraan, laakiin cashar in laga qaato oo ganacsatada ay ka qaadato oo maamuladu ay ka qaataan oo laga wada shaqeeyo, shirkad weyn iyo shirkad yariba waa muhiim. idinka laftiina shirkadaha waaweyn oo kale badanaa waxaa laydin arkaa mararka masiibadu dhacdo si gaara dababka oo kale, idinkoo laftiinu ma isleedihiin bilowgii horeba ganacsiyada yaryar oo ah cidda khasaaruhu gaadhaan dhankii ka hortagga door kama qaadataan marka dhibtu dhacduunbaa la baroordiiqdaan?
horta marka ugu horeysa walaal annaga dee dabka dhacay ama jigjigaha ka dhaceen ama hargeysaha ka dhaceen ama muqdishoha ka dhaceen ama garowaha ka dhaceen waa dab maaragtay dee ku yimi wax ka baxsan awooddeeda goobaha laga shaqaysanayo laga yaabo markii hore inaan loogu talagelin in dabdamisku ay soo galaan marka horta mar walba in cashar laga qaato waa wax meesha ku jira laakiin dee waxyaalo badan oo awooddeeda shirkad ahaan ka baxsan ama shirkadaha kaleba ka baxsan baa jira waxyaalo badan laga wada shaqayn karaa jira oo u baahan in laga diyaar garoobo casharha laga qaato waayo dabku waa wax khatara adduunka o dhan uu ka dhacaa kenya aad imika joogto ka dhacaa maraykan baad arkaysaa gobollo dhan oo gubanaya sida maarata west coastka gobollada la yidhaahdo ay gubanayaan baa la arkaa dabku waa wax adduunka oo dhan ka dhacaya laakiin cashar iyo diyaar garooba uu u baahan yahay dahabshiilo waxa allaala wixii soomaali wax u taraysa ama jigjigaha joogeen ama hargeysaha joogeen ama muqdishoha joogeen ama garowaha joogeen inaan wax kala qabanno mar walba diyaar baa unahay haddii alla ka dhigo marka maxay xalabaad is leedahay hadday tahay ganacsiyada kuweedan la midkaa waaweyn iyo kuwa yaryar ee badanaa dhibta haleeshaba hadday tahayba in cashar laga qaato sida adduunku u shaqeeyo tusaale ahaan annaga shirkadaha iyaga dahabshiil group ka mid ihi waa maalgelin baan ku samaynaa qalabka maxaa la yidhahdaa dabdamiska shaqaalaha iyaga waanu tababaraa meelo badan wixii noo suurtagala weeyaan maxaa yeelay qalabyo yaro iska kookooban baa jiro markuu dabku markiiba dhaco dabka ku baktin kartid mar aad baktin karin wuu jiraa hadduu faraha ka baxo laakiin waxyaalo koobkooban baa jira shirkadaanu ka mid ka nahay maalgelin waanu gelinaa inuu sare u kacay muddooyinkii u dambeeyey dhallinyarta ayaa la sheegaya inay yihiin kuwa ugu badan ee la kulma xaaladahaas taas oo ka badan marka la eego tiradii dadkii xanuunadaasi qabay sanadihii qaali noqotay meel kasta u k waxay ka mid tahay wadamada aada loo dareemay maciishadii inay cuntadii iyo korontadii iyo gaaskii iyo wax kasta waa qaaliyoobeen shaqooyinkana waa yaryihiin waxaa iyaduna muhiima oo loo tiirinayaa sida riboodkan ay ku sheegeen dhakhaatiirtii talo ahaan loogu tegi jiray oo arrimaha la xiriira maanka ama talo ama daweyn oo dadkii maadaama ay bateen dadkii ay biyo dheer inay galaan o aysan dhakhaatiirtii arki karin marka qofkii walwalkiibay sii badinaysaa arrimahaas dadka qaba cudurradan xaaladda cudurradaasi sidee bay u saameynaysaa noloshooda kale ee shakhsiga ah qofkii runtii markuu welwel khatar ah oo qofkii noloshiisii aad bay u saameynaysaa qofkii wuxuu noqonayaa qof mar kasta oo xamaasadiisa iyo dareenkiisa u kacsan yahay qof shaki ka qaba noloshiisiiyo ka walaacsan hadduu waxbarasho ku jiray hadduu shaqo ku jiray hadduu reer lahaa qof xaaladiisu kacsan bay noqonaysaa marka hadduu muddo dheer saa qofka ku jirana waxaa khatar in xanuun dhaba oo maanka uu ku dhaco oo qofkii xanuunada waaweyn oo maanka lagu arko ama depression ama anxiety ama waxyaabaha ka weyn oo waalida dhabtaa lagu arko marka haddaan wax laga qaban sida ay markaa tahay noloshiisa waa ay saameynaysaa si fiican bay u saameynaysaa bal daweyntooda oo kale marka ay tahay qofku xaaladdaa la nool yahay lana rabo in lala tacaalo bal dadkaas sidee loola tacaali karaa horta intaan lala tacaalin waxaa ka horeysa in la fahmo inuu isagu fahmo waxa haya inay yihiin waxba laga qaban karo in cid professionaala ama ha noqoto dhakhtar ama ha noqoto psychologist ama ha noqoto dadyooga siyaabaha kale oo wax u daweeya spiritual healer iyo la dhaho inuu arko oo wixii lagala sheekaysto oo ciladiisa fahmo haddii marka la fahmo waxa qofkan uu dareemayo ciriiriga ee dhibtu yahay wax la xiriira maanka inay tahay siyaabaha loo daweeyo waa badan yihiin marka qaarkood dawo iyo in la siiyo uma baahna in lala hadlo xaaladiisa la fahansiiyo dawaday ka mid tahay problemkii keenay waxaan inuu saan dareemo haddii xal loo helo la xaliyo dawaday ka mid tahay mararka qaarkoodna dee clinical buu gaaraya qofkii in dawo loo qoro dawo la siiyey mararka qaarkood noqonaysa laakiin waa markii go-aan inuu xanuun maankaa qaba la gaaro adigu dhakhtar bartay baa tahay oo ku takhasusay isla mar ahaantaana ku shaqeeya bal soomaalida markaad eegto iyo xanuunadaasi halkeebay isla marayaan wallaahi walaale waxa weeye soomaalidu meel kastoo ay joogaan halkan u k aan joogno dee ummadda horta uga simannahay xanuunada maanka iyo stresska iyo walwala iyo walaaca inuu ku dhaco ummadaha kaloo joogaan la simannahay laakiin sida u k lagu sheego waxa weeye dadka laga tira badan yahay oon ka mid nahay xanuunadu waa ku badan yihiin taas qayb inay nagu bataan bay keenaysaa midda kaloo keenaysa waxa weeye soomaalida annaga duruufo gaaraana haysta muddo dheer baa dadkeenu waxay ku jireen dhibaato marka taas ummaddana waa ula midna taa gaarkana waa noo jirta waxaa kaloo noo sii dheer
qayb badanoo bulshadeena ka mid ah inaysan wacyi u lahayn xanuunada maanka iyo waxyaabahan haddaan ka hadlay psychological stresska inaysan familku fahansanayn qofku markii xanuunkii uu sheegto ama uu sheegto duruufaha haya mararka qaarkood meel kalaa lala aadaa ama waxaa lala aadaa jin baa ku haya sixir baa ku haya mararka qaarkood qofkii inuu hadlaba looma ogolo waxaa leeyahay see wax kaayin imaankaaga daciifa seebaad waxaas ugu fakartay warnaga aamus waxaa ku hadlaysa annaga naguma dhacaan marka stigmadaas ama in laysku qofkii loogu caayo taasna problem weyn weeye dee ummaddaan ula nimidnahay mar haddaanu ka badnayn laakiin waxaa noo dheer inaanu wixii aqoon dawanaanu raadsan dr cabdirashiid maxamed takar oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca maanka ayuu kaasi ahaa cabdiraxmaan cali dhimbiil u waramayey ciyaarihii ayaa inoo soo socda balse markan baaritaan uu sameeyey barnaamijka b b c ee africa i ayaa walaac xoogan ka muujiyey mid ka mid ah hay-adaha adduunka ee hormuudka u ah la dagaalanka adoonsiga iyo howlgalladooda galbeedka africa international justice mission oo loo soo gaabiyo i j m oo ah hay-ad caalami ah ayaa sanadkii lasoo dhaafay bixisay in ka badan 3 milyan oo pound deeqdaas lacageed ayaa gaartay dalka Ghana halkaas oo hay-addu ay doonayso in ay badbaadiso caruurta lasoo tahriibiyo si ay dib ula midoobaan qoysaskooda hase yeeshee baaritaan qarsoon oo ay BBC-du samaysay ayaa lagu ogaaday in howlaha samafalka ay sababeen in caruurta qaarkood laga kaxaysto qoysaskooda kadib weerar lagu qaado xilliyada habeenka ah Chen Hainai Boaten ayaa warbixintan ka diyaariyey waa kan aadan maxamed cabdisaalimiin oo soo jeedinaya ohina waa tuulo fog oo ku taalla waqooyiga Ghana sanadkii hore howlgalka cadaaladda caalamiga ah ee IJM iyo boqolaal hubaysan oo booliska deegaanka ah ayaa waxa ay ka sameeyeen halkan howlgallo ay ku soo furteen 4 carruur ah oo loo aqoonsaday in ay yihiin dhibanayaal la tahriibinayay balse haweenka deegaanka ayaa ku adkaysanayay inay arkayeen carruurtooda markii xoog lagu kaxaystay aadamu waa mid ka mid ah ayayadooda waxaan ka walwalay xaggee bay ku dili doonaan carruurta maxay doonayaan inay ku sameeyaan howlgalka kadib ayaa carruurta laga soo kaxeeyey xaafaddii ay degganaayeen waxaana la geeyey hoteel halkaas oo sawirro laga qaaday laguna soo caddeeyey sawirradoodii oo cuntana la siiyey kadibna waxaa la geeyey hoy qoysaskooda ayaan wax wara ka haynin halka ay ku sugan yihiin faadumo oo 11 jir ah ayaa ugu weyneed way ii soo galeen oo ay qabteen mid ka mid ah ragga ayaa qori dhuunta kaga qabtay ayeeyaday sidii inuu u toogan rabo ayaan aad u argagaxay waxaana bilaabay oohin duulaankani waxa uu qayb ka yahay dadaalka IJM ee lagula dagaalamayo ka ganacsiga carruurta iyo tahriibinta ee suuqyada kalluumaysiga maxalliga arrintan oo caan ka ah aaggaasi hase yeeshee howlgallada samata bixinta ayaa lagu eedeeyey in ay waxyeello ka badan u geystaan bulshada deegaanka BBC Africa i ayaa si qarsoodi ah u gashay baaritaanka eedeymaha annagoo iska dhigayna tababare ahaan IJM ee Ghana wariyahayaga isqarinayay ayaa waxaa loo oggolaaday oo la siiyey mid ka mid a taleefoonnada shaqada ee hay-adda samafalka halkaas waxaannu ka helnay boqolaal farriimo WhatsApp oo ka yimid howlgallo samata bixin ah oo ku jira weerarkii lagu qaaday Faadumo qoralladan oo aanu codaynay kuna salaynay xogta IJM sargaal sharci ah oo ka socda hay-adda samafalka ayaa caddeeyey fahamkooda ka hor howlgalka waxaana uu yidhi kiiska Mohamed waxaa loo qiimeeyey inuu yahay kiis tahriibin ganacsi 3 hablood oo kalena waxaa soo baxday inaanay ahayn kuwa tahriibin ganacsi geli kara It came up there were no elements of trafficking. Fariimaha